لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ورفع شأن العلم وأهله في الإسلام وجعل منزلتهما عالية لا تدانيه منزلة من المنازل. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والصلاة والسلام على خير من بعثه الله بالعلم النافع ليخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم، سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan ku soo koobayaa kelimadeeda mowduuceeda qodobo yar oo kooban. qodobka koowaad uu yahay waa qodob qof kasta oo halka soo istaaga oo marayo ah soo dhaweynta. qodobka labaad oo ah jaamicadda Raaso iyo wax tilmaana ka bixinteeda kooban. aragtida jaamicadda oo qodobayadana ilaa wax ka taabanno. fariinta ay jaamicaddu dirayso iyadana wax ka taabanno iyo ahdaafta jaamicadda. marka koowaad waxaa leeyahay dhammaan bulshada isugu timid hoolkan qaybaheeda kala duwan, manaasibta iyo teetallada ay leedahay, uu u horeeyo madaxweyne ku-xigeenka arrimaha islaamka ee Itoobiya ahna hoggaanka xajka iyo cumrada Sheekh Cabdulaziz, ka mid yahay gudoomiyaha arrimaha islaamka deegaanka Soomaalida Sheekh Axmed Maxamed, uu ka mid yahay gudoomiyaha shareecada islaamka deegaanka Sheekh Axmed Hadi. dhammaan degmada xubnaheeda maamulka gudoomiyaha iyo guddigiisa fulinta ama kabineetka, marti sharafka qaybaheeda kala bedelan, aqoon-yahamiinta, salaatiinta, ugaasiyada, hooyooyinka iyo dhallinyarada, dhammaan waxaan leeyahay hambal iyo soo dhowaada. waxaan idinku soo dhoweynayaa ka soo qaybgalka munaasabaadka faraha badnaa ee qaybo badan ee shalay noo dhacday, qaybana maanta inoo socda. shalay iyo daraad iyo maanta 3 maalmood inoo socday. yaan idinku soo dhoweynayaa, idinku taaniyeynayaa. waxaa si gaar ah idinku sii taaniyeynayaa shakhsiyan anigoo ah afkii jaamicaddana ku hadlaya jaamicatu Raaso. waxaan leeyahay hanii'an lakum. inta mana ka gudbo jaamicatu Raaso ama Raaso University waa jaamico tacliimiya oo aan xukuumiyana bareefada islaamiya. waa jaamicad islaamiya, xarunteeda iyo saldhigeeduna ay tahay kabla degmada Raaso, gobolka Afdheer, deegaanka Soomaalida. ilaa heerka ay bixinayso jaamicadaasu waa shahaadada laado digriga ayay bixinaysaa. waana saynu ognahay jaamicaddii ugu horeysay ee islaamiya Ethiopia bismi jaamica ugu horeysay. waxay ka kooban tahay jaamicaddu inta hadda ay ku aasaasmayso waa 3 kulliyadood. beedna rabbi kulliyaadku way sii kordhi doonaan. haddase jaamicaddu waxay ku aasaasan tahay waa 3 kulliyadood: kulliya shariica islaamiya, kulliya luqa alcarabiya, iyo kulliya culuum alqur'aan. aragtida jaamicadda haddii aan taabanno, jaamicaddu waxay u taagan tahay oo soconaysaa xaqiijinta, hoggaaminta iyo muujinta dal ahaan iyo deegaan ahaanba aqoonta jaamicadeed ee culumta islaamka iyo luqadaba.
si ay ugu adeegto jaamicaddu bulshada ugu adeegto bay'ada ay u kor ugu qaado mustawa aqooneed oo xadaarad ah xakamida markaa fariinta ay dirayso jaamicaddu iyadoo in eegayno aragtida jaamicadda ka talaba qaadayno xakamida fariinteeda gaarsiinta ay gaarsiinayso fariinta islaamka ee dhaxdhacaadkayd bil xikmati wal maw'idati al hasana ku gaarsiinayso waxa kamida fariinta ay dirayso soo saarista dad majaalka aqooneed ku soo caanbaxsan oo ku filan diyaarinteeda kamida waxa kamida jaamicadda fariinteeda oo taagnida wax kasta oo soo kordhay oo soo cusboonaa bulshada dhexdeeda ummaduna baahi ay u qabto oo fariimaha diraysa qayb kamid ah hadalkan soo kooban rabaa haddii aynu eegno jaamicadda iyo hadafkeeda ama ujeedkeeda waxa kamid ah iyadoo aynu ka tallaabo qaadayno aragtida jaamicadda iyo fariinta ay dirayso هدفteedii ujeedkeedu wuxuu yahay samaynta ama diyaarinta aqoon-yahamiin ku takhasusan luqada carabiga iyo adabka takhasusku leh waxaa kamid ah samaynta culimo takhasus u leh usuulu diinka iyo axkaamta shareecada islaamka waxaa kamid ah diyaarinta علماء الدعاء آئمة مربين وتربيين هي أودنا أولى حضارة أقوام الإسلام كفافين تهذا هي الدعوة إدتك أوليان أود ولا صارست هذه ديار تهذا حكم إذا وجد كذا وقصد حضارة إنسان كبني آدم iyadoo saldhig looga dhigayo mabaadi'da islaamka waxa kamid ah ujeedka jaamicadda in la ballaariyo oo la buuxiyo aqoonta heerkeeda la gaarsiiyo aqoon ka jawaabaysa baahida bulshada waa ujeedadka kamid tahay كبيدنا ربي أنا وقضب كي أنت أكسو كامينا يا وحنا ده مرة لا أكسو جبينا يا أن جامعة داس عصب إنه فرنت بعد اللي أكسو دوادا بيدنا ربي وحاك الله سير رأينا يا ديوان قلنت هذا نبوي نوب باللابان دون تا وقت يدو